وإسكا عطاي دولمي كاستا إن يتبهات كاستا كبر يولي بيسلوينه إن أي لا هاي مالي كل ماتو sidoo kalena cidda eeb weyn uu adeegsanayo inuu ku soo afjaro ma aha oo kaliya ayaa leeyahay imkaaniyaadka inagu aynu naqaano ee waxa jira kuwa kale waxaana laga yaabaa waxyaalo adigu aad mar walba u malaynayso inay khayrkaaga yihiin inay sharkaaga noqdaan tani waa tahaysata hogaamiyaha nidaamka saanuniyadda ee Israa'iil Netanyahu kaasoo hadeerta darbi madaxa ku garaacis kadib ay si dheertay ayaa leeyahay in cid kastaba ay ka dhaqaaqday waxaa si aad u ballaaran u socda gilgilka aadka u xoogan ee wadamada caalamka oo dhan ay doonayaan inay ku qaadacaan alaabaha Israa'iil oo ay ugu dameeyaan ururada shaqaalaha ee dalalka iyo wadamada reer Yurub kuwaas oo si istaba jooga u sheegaya una shaacinaya inaysan doonaynin haatan iyo wax ka dameeya in alaaba lagu soo sameeyay dhul xaaraan oo la boobay warshado ku yaala aan laga cuni doonin wadamadooda ku soo dhawaada barnaamijkana warwareyn oo ku maqli doontaan qodob kale oo xiisad iyo xalad bale wargeyska New York Times ee dalka Mareykanka iyo maqaal ciwaankiisu uu yahay dawladda Israa'iil maaha xulafadeena oo uu qoray Thomas Friedman waxa uu noqday mid kamid ah qoraalada ugu dambeeyay ee sheegaya dhammaan wararkii aynu dhawaanihii ugu dambeeyay aynu tabinay waa maqraati kaca wargeysyada ugu waaweyn ee gacanta ku hayeen kuwani qoraagu wuxuu hadalkiisa ku bilaabay isagoo ka hadlaya booqashada uu madaxweynaha Donald Trump ee Mareykanka ku tagi doono bariga dhexe toddobaadkan taasoo uu ku mari doono dalalka Sacuudiga Imaaraadka iyo Qatar isagoo aan booqanaynin Israa'iil tani ayuu adeegsaday inuu kaga faaloodo xiriirka u dhaxeeya Mareykanka iyo xukuumadda nidaamka Benjamin Netanyahu taasoo uu arko hadda kadib in aysan ahayn xulufo Washington dawladda Israa'iil maaha xulafadeen waa hadallada aadka u xoogan ee dadku ay si aad baan u hadalhayaan madaxweynaha dalka Mareykanka Trump ayaa markii ugu dambeysay breega u qabtay Netanyahu iyo waalidii iyo horcararkii markii horeysay wuxuu Trump doonayay bal inuu eego inta uu carari karo ninka loo yaqaan Netanyahu iyo inta la aamini karo ugu dambeyn waxa uu ogaaday in Netanyahu uu rabo inuu Mareykanka laftiisa doqomaysto madaxdiisana uu arko waxa uu isagu iska leeyahay taasi ma aysan noqonin hanaan iyo han ayaa leeyahay ee waxay noqotay wax la yaab leh wuxuu qoray safarkaaga toddobaadka dambe aad kula kulmayso hogaamiyaasha Sacuudiga Imaaraadka iyo Qatar adigoo aan wax qorshaha u haysan inaad la kulanto ra'iisul wasaare Netanyahu ee Israa'iil waxay muujinaysaa inaad bilaabayso in aad garwaaqsato xaqiiq asaasi ah sida dawladda Israa'iil ay u dhaqmayso si khatar gelinaysa danaha asaasiga ee Mareykanka ee gobolka Netanyahu saaxiib nooma ah wargeysku markaasi iyo wariyaha qoraaga la yaab kale waxa uu u sheegaya in madaxweynaha dalka Mareykanku habka uu dhaqmayo ay tahay garaad ku soo degay oo ka maqnaa hogaamiyaashiisa ee ka horeeyay qoraagu wuxuu arabka ku adkeeyay in shacabka Israa'iil guud ahaan wali isu arko ama uu arko in ay yihiin xulufo dhow oo Mareykanku leeyahay ama shacabka Mareykanka laba ah sidoo kalena ay sidaas u arkaan dadka Mareykanka laakiin wuxuu leeyahay dawladda Israa'iil ee qowmiyadda xaq jirka ah leh aragtiyo diiniga kana leh kiristaanka yuhuudda ma xulufada Mareykanka waa dawladii ugu horeysay taariikhda Israa'iil oo aan mudaasin nabadda dariskeeda carabta ah ama faa'iidooyinka ay keeni karto xoojinta amniga iyo wada noolaanshaha qoraagu wuxuu tilmaamay in mudnaanta ugu weyn ee dawladda Netanyahu ay tahay inay la wareegto daanta galbeed ka saarto Falastiiniinta Gaza isla markaana dib u dhisto deegaameynta Israa'iiliyiinta ee halkaasi lama garanayo sida qoraagu uga gabangaabsaday ama uu u dhigi doono hanaanka sida uu madaxweynaha dalka Mareykanka Trump uu isagu u falkiyay fikrad gabi ahaanba ka sii waashay cadaabahana ku sii tuurtay sida loo arko Netanyahu taasoo ahay dadka reer Gaza meesha laga saaro laga raro bal ay eegno hadduu wax ka dhaxo fikradda ah in Israa'iil ay leedahay dawlad aan mar dambe u dhaqmi doonin sida xulufada Mareykanka isla markaana aan loo arkin inay sidan tahay waa arrin fajicisa iyo murugo ku ah saaxiibada Israa'iil ee Washington waana mid ay ku adag tahay inay aqbalaan balse waa inay aqbalaan ayuu Friedman isagoo markaasi hadalkiisa doonayay in uu u sameeyo dhaxtaan dawladda Netanyahu iyadoo raadinaysa hirgelinta ajandayaasheeda xaq jirka ah waxay dhaawacaysaa danaha yaga ayuu raaciyay wuxuuna sheegay dalka Mareykanku hadda uu isagu qiir u yahay runtu waxay tahay in aadan u ogolaanayn Netanyahu inuu ka gudbo ama ka horumaro sida uu ula dhaqmi jiray madaxweynihii hore ee Mareykanka waa arrin ku qoran sharaf dhac aad xoogan
isagoo ugu baaqaya Trump inuu difaaco waxa uu ku tilmaamay qaab dhismeedka amniga ee Mareykanku leeyahay kaasoo ku salaysan isbahaysiga ayuu yidhi hadda jira ee Mareykanka Carabta iyo Israa'iil isbahaysiga la aasaasiga ee xilligii madaxweynaha hore la asaasay Richard Nixon iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Henry Kissinger ee kadib dagaalkii October 1973 ujeedadiisu ahayd in la fogeeyo Ruushka lana xaqiijiyo in Mareykanku uu noqdo awoodda ugu sarreysay adduunka ka talisa gobolka sida uu qoraagu xusay waxaa sabab u ahaa aqbalaadkii ay Carabtu u aqbaleen Mareykanka qoraagu wuxuu aaminsan yahay in qaab dhismeedka amniga gobolka gabi ahaantiisba uu si weyn ugu tiirsan yahay ballanqaadka Mareykanka iyo Israa'iil oo ku saabsan xalka labada dal in la dhiso dowladda Falastiin oo daris la Israa'iil waa ballanqaad oo madaxweyne Trump laftiisu isku dayay inuu horumariyo intii uu xilka hayay muddo xileedkiisii hore ayuu muddo ku dhawaad sanad ah maamulka Joe Biden wuxuu ka baryay Netanyahu inuu sameeyo hal arrin oo kaliya oo dan u ah Mareykanka iyo Israa'iil inuu aqbalo in la furo wada hadal lala yeesho maamulka Falastiin si maalin uu looga wada hadlo xalka labada dal taasoo bedelkeeda ay Sacuudigu cadaadinayaan xiriirkooda Israa'iil arrintaasoo furo u noqon lahayd in la ansixiyo heshiis amni oo Mareykanka iyo Sacuudiga ah oo Kongareeska laga meel mariyo si loo miisaamo saameynta Iiraan loona xakameeyo tan Shiinaha ee sida uu sheegay Friedman qoraagu waxa uu gabi ahaanba ka cabanaya in caqabadaha Mareykanka bariga dhexe ka haysta hadeerta ay sahayn Carabta balse ay tahay Israa'iil Netanyahu uu ka diiday arrintan sababo xag jirka Yuhuudda ah darteed ee ku jira dowladdiisa waxaana u sheegay in haddii uu taa sameeyo ay ridi doonaan dowladdiisa isagoo la tacaalaya dacwado musuqmaasuq oo badan ma uusan awoodin inuu is-casilo ama ka tanaasulo xilka maadaama uu doonayo inuu xilka usii hayo si uu u hakayo ama u dheereeyo maxkamadeyntiisa ogana fogaado xukun suurtagal xabsi ku damayn qoraagu wuxuu rumaysan yahay in Netanyahu danihiisa shakhsiyadeed ka horumariyay danaha Israa'iil iyo Mareykanka taasina ay sababtay inay soo baxaan warar sheegaya in Mareykanka iyo Sacuudigu ay go'aansadeen inay ka reebaan Israa'iil ka qaybgalka heshiiska caadiyeynta xiriirka loo yaqaano normalization deal sida uu qabo qoraagu taasi waa khasaaro dhab ah oo soo gaadhay Israa'iil iyo shacabka Yuhuudda laftooda mustaqbalka fog ma noolaa karaan nabad la'aanteed waray baahisay wakaalada wararka ee Reuters Khamiistii ayaa sheegay in Mareykanku uusan mar dambe ka dhigi doonin sharti in Sacuudigu caadiyaan xiriirka ay la yeelanayso Israa'iil si loo socodsiiyo wada hadallada iskaashiga tamarta nukliyeerka ee ujeedadiisu ay tahay adeegyo rayid ah oo u dhexeeya Washington iyo Riyadh qoraagu wuxuu sii waday dhaliilihiisa u jeedinaya siyaasadda dowladda Israa'iil gaar ahaan qorshaha Netanyahu ah inuu mar kale duulaan ku qaado marinka Gaza isagoo doonaya in dadka Gaza oo lagu koobo aag cidhiidhi ah oo dhinaca ka ah badda Mediterranean dhinaca kalena ah xadka Masar halkaana ay isku buurtaan si wadista la wareegista dhulka daanta galbeed ee West Bank iyadoo aan sharci lagu salaynin taasoo u dhigan qabsasho dhab ah oo aan sharci ahayn de facto annexation wuxuu qoray arrimahani waxay Israa'iil u dhigayaan halis weyn gaar ahaan taliyaha cusub ee ciidanka Israa'iil Ayal Samir oo laga yaabo in lagu eedeeyo dambiyo dagaal oo dheeraada taasoo la filayo in maamulka Trump laga rabo inuu ka difaaco waana arrin ku soo socota ugu dambeyn sidoo kale qoraagu wuxuu si adag u dhaleeceeyay hadallo uu jeediyay wasiirka maaliyadda xag jirka Bezalel Smotrich qase ay noqon doonto dhul Israa'iil si rasmi ah u haysato weligeed ayaa laga soo xigtay Bezalel wuxuu uga digay in haddii ay dowladda Netanyahu fuliso qorshaheeda ku aadan qase aysan kaliya keeni doonin eedeymo cusub iyo dambiyo dagaal oo lagu soo ogo Israa'iil balse sidoo kale ay halis weyn geli doonto xasiloonida dalalka Urdun iyo Masar kuwaasoo ah labada tiir ee ugu muhiimsan isbahaysiga amniga Mareykanka ee bariga dhexe sida uu qoraalka uu ku faahfaahiyay Falastiiniyiintu waxay si diiran ugu baahan yihiin hogaamiye matala ayuu qoraagu uu xiganaya waxaan u gudbinay wargeyska The Guardian ee dalka Ingiriiska iyo maqaal uu ciwaankiisu uu yahay Falastiiniyiintu si daran ayay waxay ugu baahan yihiin hogaamiye matala balse waxay wajahayaan khiyaano cusub oo dimuqraadi ahayn oo ay qortay Dana L aynu eegno isagana maqaalkaasi
wuxuu ku bilaabanayaa hadalka kala daadsanaanta iyo burburka haysta shacabka Falastiin iyo sida hogaankoodu u maqan yahay. Qoraagu wuxuu aaminsan in maamulka Falastiin uu saldhig u yahay mushkiladda kadib waxay tilmaamaysaa madaxweyne Maxamuud Cabbaas oo qiyaastii 90 jir ah isla markaana xukunka ku yimid xiriir dhow oo uu leeyahay Mareykanka iyo diyaar ahaanshihiisa in uu ku sii nagaado dariiqa heshiiskii Oslo intii lagu guda jiray kacdoonkii labaad ee Falastiin. si kastaba ha noqotee arrintu waxay u muuqataa dadka reer Falastiin marakan in ay marxaladoodu ay tahay sirma qabe Allah subhanahu